de waa eeda siyaasiya weeyaan oo maad aragtay in la joojiyaa la doonayaa gaadhigan istaaran ee isla xisaabta ka wada gaadhigan istaaran ee dulmadiidka gaadhigan istaaran ee maad aragtay dawladda casriga iyo in dadka loo shaqeeyo doonaya eeda lagu baqtiyo la doonaya weeyaan marka maxamed imika doodii ama dacwadii laga soo gudbiyay halkay maraysaa golaha wakiiladu muxuu ka yeelay waa tii shirkadoonka loo soo gudbiyay xaqiijiyeen haddii sharcigu jira dalka waa in golaha wakiiladu uu celiyo dastuurka ma waafaqsana dacwadaas ma baahna in golweyne la horgeeyo in goluu celiyo weeyaan marka xildhibaan waa maxay qodobada aan waafaqsanayn 79 ma waafaqsana waxayna ka soo horjeedaa dhowrsanaantii iyo xurmadii uu dastuurku siiyey xildhibaanka waayo aniga dacwad dastuuriya waa liigu kara dacwad waa liigu kara laakiin dacwad baadil liigu kara salaam walaal okay marka xildhibaan haddii tusaalahaan oo kale dacwadan la soo gudbiyay oo golihii la keenay adigu inaad halkaasi iska bari yeesho oo wixii golaha oo de xildhibaanada mucaaradku aqabid ku leeyihiin halkaasi ka bari yeelan oo ay dhahdaan ma garanaysaa arrinta lagu soo eedi wayba socotaa salaam way socotaa si fiican buu socotaa mudanayaasha golaha wakiiladuna way awshaasi way ku dhiiran yihiin wayna wadaan maandhood waxaa laga cabanayay oo la muujinayay inaad gudoomiyaha golaha oo shir gudoominaya aad hadalla kulul ku jiro marka ma la odhan karayaa in iminkana shirkaagan jireed waxaad ka hadashay gudoomiyaha golaha wakiilada yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon marka ma la odhan karayaa arrintan waxay qayb ka tahayba in xeer hoosaadka golaha lagu marinayo laleeyahay maxamed ayub hal anshax mariyo dee anshax marinta iyo xasaanaadka qaadista waa kala gaar walaal wax laygu anshax mariyana maa sameey gudoomiyaha golaha wakiiladu isagoon xaq u lahayn inaan su'aalaha weydiiyo qof mas'uul oo yimiday ayuu ila hadlay hadalkana waa lagu leebelgariyay meeshaan xildhibaan kale oo maad aragtay